casharadeenii maadada xisaabta waxaan xalli aan ku jirnay solutionka ama xalka imtixaankii 2023 maadada xisaabta section 2 ayaan fiirinaynaa oo margin ama isku aadis ah. Su'aashooda waxaa lagu yiri limit x approach to 3 of 7 ayaa lagu weydiiyey. Marka limitka haduu constant yahay constantiga la soo laaba iska ilaali. Marka maadaama meesha x is la socon x power 0 u qarsoon macnaha hadii 3 lacag lagu bedelo x power 0 hada wana noqonay 17 ku dhaw 7 kii la soo laaba. Marka waxay noqonay hadii constant marba yahaba constantiga la soo laabay. Marka su'aashan waxay ku aadaysaa 7 ayay ku aadaysaa waa ka su'aashooda intaas gelinaysa. Su'aasha labaad waxaa la yiri hadii s ay u taagan tahay sample space-ka ay u taagan tahay liiri equally equally likely events dhacdooyin macnaha isku jaanis ah hadii ay sample space u tahay liiri probability of an event marka wuxuu noqonayaa saan marka qaacidada probability ayaa qoraysa waa kana waa qoranta inta ku dooran waa number of event oo loo qeybiyo number of sample space qaacidada probability loo isticmaalo marka iyada ku aadinaysa. Su'aasha labaad waxay tahay integral k of x dx kaydan waa constant macnaha markii integration ka saarida function constant wixii banaanka loo baxshaa marka banaanka loo tuura kadib waxay ku noqonaysaa f x dx ku noqonay marka kaas ayaa ku aadinaysa waa kana waxay ku 3 inta ku aadaysaa marka iska fiiri okay inta ku aadinaysaa 3. Su'aashan afraadna waxa lagu tan 15 waay tan 15 degree calculator iska gali waxa ku soo baxay 2 minus degree 3 waxyaabo calculator la gali karo calculator ku soo qoro macna si hadhowti imtixaanka calculator waxyaabo badan loo shaqeey karo marka iska fiiri sidoo kale waxa soo baxay inta kaas ku aadinaysaa marka wuxuu ku aadayaa meeshaas wuxuu ku aadayaa number 4 kaas ayaa ku aadinaysaa number 4. Su'aasha shanaadna waxa lagu yiri -4 oo radical ku jirta 2i waa baxay 2i calculator gali inta complex number saaratid calculator gali marka waxa ku soo baxay 2i ayaa ku soo baxay kadibna hada 2i ku aadinaysaa waa kaasa. Okay su'aasha lixaad laftirkeedu waa la mid waxa waaye waa factorial 7 factorial 7 ilaa 1 isku dhufanaysaa waa 540 calculatorka ayaa gelinaysaa kadibna way ku soo baxay waa ku aadinaysaa marka waa kaasa lix halkaas aan dhignay. Su'aasha waxa fiiridaa toddobaad limit waaye 2 ku bedelo meel soo x daartan calculator iska gali si loo galiyo wala hore soo sheegnay waa ka daawa kartaa waxa waaye 2 square minus 4 2 hada square waa 4 4 ilaa minus 8 hadii laga jaro 4 waxa soo baxay -4 hadii hal lagu daro way ka go'ay -3 soo baxay calculator dagaleedna waa ku ansaxay -3 marka ayaa ku aadinaysa waa tan 7 halkaas aan dhignay. Su'aasha sideed waxa la derivative waxa lagu weydiiyay function kan x power 5 hadaba taasi loo derivative garay hore ku soo dhufo 5 ta 5x jibaarkan halka jar waxay noqonaysaa 5x power 4 ay noqonaysaa iyadoo waa tan 8 halkaas ayaa dhigaysaa. Okay su'aasha sagaalaad waxa lagu weydiiyay integral lagu weydiiyay integral kan sheeg 3x square sa loo integrate garay waxa sameynaysaa jibaarka hala ku daray 3 oo noqona isla jibaarka kalena waa u qaybinaysaa balaasiina waa dhahay 3 iyo 3 marka waa isla baxayn x cube balaasi ah ku soo dhigay waa kaas jawaabta u dambayda ay ku aadaysaa jawaabta. Su'aasha tobnaad waxa lagu weydiiyay sin x minus cos x derivative garay waxaan inta badan examples u baahan examplada aad iska fiiriyo example-ka iyo exercise-ka inta badan laga sahlay sababtoo examplada imtixaanka waa laga keenay exercise-kan waa laga keeni karaa sin x minus cos x derivative garay hoosan ku qorno jawaabteeda sin x derivative garay waxay cos x minus ka soo qaado cos x derivative garay minus sin x ay noqonay minus isku dhacay waa plus marka waxa ku soo baxay cos x plus sin x ay ku soo baxay iyaduna waa kaas su'aasha tobnaad meesha ay ku aadaysaa. Okay intaas ayuu ku eegyahay marka qaybteeni oo ah qaybteeni oo ahayd section 2 margin halkaas ayaan ku duubnay iyadana waxaan noo dhimay qayb su'aalaha tooska. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.